inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. dhacdo la yaab leh ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir. gabadh lagu magacaabi jiray Nafiso Cumar Geelle ayaa oo saddex maalmood la raadinayay ayaa waxaa meydkeeda laga soo dhexelay gurigeedii ay ku noolayd kadib markii 3 maalmood oo xigta la raadinayay. gabadhan oo 11 sano jir ah oo iskool dhigata ayaa waxaa la raadinayay muddo ka badan 3 maalmood iyada oo meel kasta laga baafiyay. 3 maalin ka bacdi maanta ayaa waxaa laga dhexlay gurigeeda iyada oo la dhexgeliyay digsiyaasha waaweyn ee cuntada lagu karsado kadib markii ay urteeda soo qabatay guriga dhexdiisa oo la joogi waayay. waxaa argagax ku yimid dadkii dariska ahaa iyo waliba dadkii waalidka u ahaa gabadhan kadib markii muddo dheer la raadinayay gabadhan oo lagu magacaabo Nafiso Cumar Geelle. aabe Cumar Geelle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in uusan la hadli karin dhacdadan oo ka argagaxay iyadoo hooyadii gabadhan dhashayna hadda la sheegay inay waliba iyadoo aad u xanuunsan tahay. Nafiso Cumar Geelle ayaa markii gurigeeda lagu arkay meydkeeda waxaa loo wacay hay'adaha dambi baadhista CID-da, booliiska degmada Dharkeynley iyo waliba khuburo ku takhasustay. waxaa halkaasi markii la gaaray laga soo bixiyay meydkeeda oo ku jira digsi weyn sida muuqaalka idinkaga muuqda, iyada oo dadka deegaankuna ay argagax ka muujiyeen dhacdadan la yaab kale ee ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir. dadka deegaanka ayaa iskugu soo baxay xaafadda iyaga oo la yaabay gabadhan halkaasi lagu dilay. wiil la dhashay gabadhan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu u malaynayo in gabadhan ciijo lagu qabtay ama qoorta laga qabtay sidaana lagu dilay. 7 qof oo ka mid ah dadka xaafadda ku nool oo qaraabada ayaa xabsiga la dhigay iyada oo booliiska Soomaaliya uu sheegay inay baaritaan dheer ku sameyn doonaan. Nafiso Cumar Geelle oo ahaa iskooley ayaa waxa ay guriga markii ugu dambeysay sheegtay inay banaanka wax ka soo qaadanayso kadib markii ay ka timi iskoolka oo u dhow xaafadooda. dhacdadan la yaab kale ayaa markii dadka deegaanka ay si aad uga sheekaysanayaan iyada oo ku tilmaamaya in ayba tahay dhacdo la yaab leh oo argagax mudan. dadka qaar ayaa sheegaya in gabadhan laga yaabo qof qaraabadooda inuu dilay iyada oo dadka kale sheegayaan in meydkeeda guriga la soo geliyay, laakiin booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay si degdeg ah u baari doonaan arrinkan.